kiiskii Sushant Singh waxa ugu dambeyn la cadeeyay haddii Sushant uu isdilay ama la dilay. ugu dambeyn waxaa shaaca laga qaaday kiiskii Sushant Singh Rajput war rasmi ay soo saareen xarunta ugu weyn caafimaadka gudaha India kadib baaritaan dheer oo ay ku guda jireen kuna saabsanaa kiiska Sushant Singh haddii uu isdilay ama la dilay. madaxa ugu weyn xarunta caafimaadka India Medical Board Dr. Sohit Gupta wuxuu sheegay in Sushant uu isaga isdilay isna daldalay cidna aysan dilin sida baaritaankooda ku sheegeen. Dr. Gupta oo hadlaya wuxuu yiri baaritaankii Sushant aan ku sameynay jawaabta inoo soo baxday waxay noqotay inuu isdilay isaga aan la dilin sababtoo ah ma aysan ku arag jirkiisa wax garaafo ama dhaawaca marka laga reebo xariga oo isku dilay ama isku ciijiyay. Haddaba waxaa meesha ka baxday dhaawacyadii la sheegayay muddada dheer iyo wuu isdilay. sidoo kale shaybaarka ku yaalay Mumbai wuxuu bishii Agoosto xaqiijiyay in Sushant isaga isdilay waana markay kiiska gacanta ku hayeen booliska India. kastaba ahaatee haddeertan waxaa caddaatay in Sushant isaga isdilay balse qoyska iyo taageerayaashiisa iyo qareenka u doodayay arrinkan way diideen sidoo kale wali lama oga xitaa hadduu isdilay sababtuu isku dilay.